بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. waxaa inoo socday barnaamijkeeni ahaa nuxurka soonka. maanta waxaan ka hadlayaa hadduu ilaahay idmo xigmadda loo jideeyey soonka. xigmadda soonka loo jideeyey maxay tahay? qodobo dhowran kusoo koobi doona hadduu ilaahay idmo inta ilahay naga gaarsiiyo. qodobkooda waxaa weeye waxaa soonka loo jideeyey si nafta loogu tarbiyeeyo. waa madraso nafta lagu tarbiyeeyo oo waxaa nafta lagu tarbiyeynayaa ilaahay subxaanahu watacaala taacadiisa, inay waxa weye amirta ilaahay qaadato, wuxuu ilaahay ka reebana ay ka harto. saasaa nafta lagu tarbiyeynayaa. hoggaansi dhabana ay la timaado, ayna muujiso addoonnimo ama waxa loo yaqaana kamaal cubuudiya, addoonnimo dhamaystiran inay muujiso. xataa nafta waxyaalihii caadiga u ahaa oo u bannaanaa baa loo diiday, sida cuntadii iyo cabitaankii iyo jimaaci xataa waa loo diiday, si ay markaa waxa weye idcaan iyo hoggaansin ay nafta u muujiso. yani waxaaso dhan qofku wuxuu uga tegaya ilahay dartiisa uga tegaya, isagoo u hoggaansamaya ilahay subxaana watacaala waxaaso dhan uga tegaya. ilahay waa isaga lahaa yatruku طacamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli. yani qofku wuxuu ka tegayaa طacaamkiisii, cuntadiisii iyo cabitaankiisii iyo shahwadiisiiba aniga dartii buu uga tegaya. marka naftaa la laylinayaa, waa bil nafta lagu layliyo oo lagu tarbiyayo. bilihii kale oo dhan una soo dhaafay 11 bilood qofku waxa weeye dee wuxuu iskaga jeeda adduunyo. bishan waa bil cibaado weeye oo ilaahay subxaana watacaala qofku inuu isku gooni yeelo oo cibaadada badiyo ayaa looga baahan yahay. marka nafta tarbiyeynteeda darteed, nafta in la tarbiyeeya baa loo jidiyay bishan, baa soonka bishan loo jidiyay. qodobka labaad waxaa weeye qofku inuu dareemo dadka kale oo masaakiinta ah, fuqarada iyo masaakiinta dadka inuu dareemo oo u naxariisto, maadaama gaajadan asaga qabanaysa ay gaajadan weliba muddadan yarta oo kooban asaga qabanaysa ay muddo badan soo haysay, ama laga yaabo weligeedba inaa haysaba dadka qayb ka mid ah oo fuqara ah ama masaakiina ama magaranaysa. marka inuu dadka u naxariisto darteedna waa loo jidiyey. wuxuu yidhi imaamka weynaa oo la oran jiray alcalaama ibn humaam, wuxuu yidhi inahu lama daaqa alam aljuuc fi bacdi awqaatihi, qofku markuu dhadhamiyo xanuunka gaajadu iska leedahay awqaadiisa qaybo ka mid ah, wuxuu xasuusanayaa inay jiraan dad xanuunkaa dhadhamiya waqtigoo dhanba. saa la ajligeed wuxuu ku dadaalaya qofku inuu dadka u gargaaro. marka in dadku isku naxariistaan, yani iskartaan, la isdareemo, saasaa waxa way loo jidiyey. waliba hadda waqtigaan ku jirna asagoo waan kasii gooni oo dee waqti waxaa lagu jiraa wax kastoo ay xirmeen, xanuun coronavirus la dhaho adduunka ku faafay. dadkii masaakiinta oo shaqaysan jiray oo biilkooda yarkaas u lacsan jiray xataa guryaha fariista. marka qof kasta hadda waxaa waajib ku ah in uu dadka kaloo masaakiinta oo asaga ka itaal daran inuu u gargaaro. waxaa waajiba qof kasta inuu dariskiisa ka warqabo xaaladiisa iyo wuxuu ku sugan yahay, in uu dadka qaraabadiisa ah labtirkooda ka warqabo, in dadka barakacyaasha ah oo masaakiinta meelaha jooga laga warqabo oo waxay u baahan yihiin waxaa weeye ama waxa ka dhiman la siiyo. marka waa bil noocaas ina faraysa. waliba xilliga hadda aan ku jirno waa sii waajib weeye. dadka soomaalida waa dad lagu yaqaano badanaa inay isgargaaraan. marka isgargaariddu xilligan bay sii muhiim tahay. waa bil rabadaan, waa bil coronavirus jiro, dhibaato jirto. marka dadka islaamka o dhan waxaan ku waaninayaa in qof kastaba jiraankiisa xaaladiisa uu ka warqabo, uu u gargaaro, cid kastoo qaraaba yihiinna uu u gargaaro, iyo dadka barkacyaasha. qodobkaas waa labo. marka qofkuna waxaa layihi qofkii hal timir ah ama hal kooba biya qofsii ku afuriya, waxaa la yidhi ajirkiisoo kale, qofka ajirkiisoo kale buu helayaa oo rasuulkiisa sal ly slam asagoon qof kale laga nusqaamin. qodobka saddexaad oo loo jeedeeyey soonka waxaa weeye soonku wuxuu daciifinayaa shahwadii buu daciifinaya. saan ogsoonahay shahwadu waa meelaha madaaqiisha qofka shaydaanka kasoo gala meesha ugu weyn weeye, oo shaydaanka qofka meelahu kasoo gala meesha ugu weyn weeye. saa la ajligeed bartaas ayuu soonku daciifinaya. oo rasuulka sal ly slam waa isaga lahaa dhalinyaroy qofkii idin ka mid ah qofkii awoodi kara inuu markaa nafaqada guurka ha guursado, faman maxaa yeelay fa inahu aqadu lilbasar waxsan lilfarj. yani indhahana asaga u labis badan, farjigna asaga dhowris badan. waman lam yastatic fa calayhi bisoom fa ina lahu wijaa. qofkii waxa weeye aan awoodi karina ha soomo. waayo maxaa yeelay soonku wijaab u yahay, dhufaanid buu u yahay, qofku uu dhufaanaya. yani soonku shahwadii o dhan buu jibinaya. midda kale soonku qofku wuxuu iska leeyahay laba jaanib buu iska leeyahay. jaanib la dhaho jaanib tini
jaanib dhoobo iyo jaanib la dhaho alruux alilaahi, jaanib kale oo asna ruux ilaahi ah oo jaanibka ruuxda iyo jaanibka dhoobada. marka jaanibkan dhoobada mar hadduu awood bato qofku hoos buu dhacdhacay, eber buu noqonaya, qof wuxuu noqonaya xayawaankaas oo kale ah. jaanibkan ruuxda hadduu awood batana qofku wuxuu noqonayaa qof kor aada oo waxa weeye dee sifaadka malaa'igta yeesho ayuu noqonaya. marka soonku waxa weeye qofka jaanibkiisa ruuxiga ayuu kor u qaadaya, jaanibkiisa ruuxiga buu kor u qaadaya, jaanibkan diniga ana hoos buu u dhigaya oo shawadi u jabinaya. qodobkaasna waa labo. qodobka saddexaad waxa weeye soonku jirka ayuu wuxuu u yahay caafimaad u yahay, sida dhakhaatiirta oo dhan ay sheegeen waa iyadan daba cilmiga culumta cusub iyo baaritaanka cusub la sameeyey la ogaaday jirka ayuu soonka caafimaad u yahay. waayo maxaa yeelay materialka jirka ku jiro oo dhan fasidka xumaay oo dhan buu ka takhalusaya, soonka ka takhalusaya, markii caloosha gaajooto ka takhalusaysaa. sidoo kale waxa weeye calooshii buu faaruqinaya, caloosha mar hadday faaruqdo wixii qurunka o dhan ay ka baxaana caafimaad baa meesha imaanaya. sidoo kale waxa weeye dhiiggii buu saafi yeelaya, shaqadii qalbiga ama waxa loo yaqaano circulatory systemkii dhiigga shaqayntiisi baa si fiican, dhiig baa si fiican u shaqaynaya. yani fawaa'id badan oo caafimaad buu iska leeyahay. marka sala cildigeed maadaama sixa uu dadka bani aadamka u yahay saa darteed baa loo jideeyey. dhakhaatiirtuna way kula talisaa dadka inay soomaan. waxaa ka mid a waxyaalaha soonka loo jideeyey, qofku wuxuu dareemayaa nimcada ilaahay siiyey. waxaa la yidhi nimcada waxaa lagu gartaa dadkeed baa lagu gartaa. hadda masalanba qofku hadduu iska dhargsan yahay uusan magaranaysaa weligiisna oomin, weligiisna gaajoonin, hadda ma dareemi karo nimcada ilahay ma dareemi karo. markuu gaajoodo qofku wuxuu dareemayaa nimcada uu ku jiray buu dareemaya. markuu gaajoodo, markuu oomo, nimcada uu ku jiro oo haysi buu dareemaya. saa la ajligeed ilahay buu ku shukrinaya marka ayada. taasna waa mid. sidoo kale qofku inuu dareemo raaxa, inuu dareemo baa loo jeeday. waxa la yidhi arraaxatu bacda tacab baa la yidhi. raaxada waxaa la dareemaa marka qofku uu daalo kadib. qofku marka inuu raaxa dareemo baa loo jeeday soonka. waayo maxaa yeelay qofka iska barwaaqa iskaga jira raaxada qiimaheeda ma garanayo. qofkii dhibaatooda baa qiimaha raaxada garan kara. waxyaalaha loo jeedeeyey way tira badan yihiin. sidoo kale sabirka, qofku inuu sabir yeesho, dulqaad yeesho baa loo jeedayay. bishan waxaa loo yaqaanaa bishii sabirka loo yaqaanaa. marka waxba idinkuma dheeranaya insha allah hadduu ilahay idmo. inaasan kusoo koobayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu.